maalin buu nebigu saxaabada ku yidhi way soo jihaad bay ku jireen markaa buu nebigu ku yidhi bilaalow waan yar daalanahay halkana waan seexanaynaa waa ku nasanaynaa caawe salaada subaxinayna dhaafina noo kici buu ku yidhi bilaalna hurdadii baa la tagtay radia allahu canhu cadcaadiyo halkaa joogtuu nebigu kacay sala allahu calay wasalam bilaal oo hurdana waa la kiciyey nebigaa kiciyey bilaal maxaa ku helay yaa rasuul allah allaha naftiinni niga qaadee la tegey ayaa taydiina la tegey buu ka yidhi markaa buu nebigu ku yidhi way tukadeen markaasuu yidhi meeshan waa meel khafladeede inaga kiciyo halkaa ciidanka halkaa u rara buu ka yidhi halkaa u guura meel salaad keliya ay ku dhaaftay hadduu nebigu yidhi ciidanku ha ka diga rogto ha ka guuro meel 100 salaadood nagu dhaaftay ka warrama joogitaankeyga marka warrama dadka muslimka dhul muslima intay ka tagaan dhul gaala u socda u guurayna ka warrama hal salaad meelay nebiga iyo saxaabadiisa ku dhaaftay iyagoo khaarijiina oo ilaahay diinkiisa u socda hadduu nebi maxamed uu yidhi meeshan qaflad baa inagu haleeshay ee hanbadallo meesha 10 salaadood nagu dhaaftay ka warrama markaas soo inaan ka yar baxno soo maaha waa inaan ilaahay darta u baxno cid nebi maxamed ka deeqsasan adduunka ma soo marin ghaswadaas ghaswatu xunayn xoolihii markii mushrikiinta la jebiyey xoolihii gaalada laga soo qaaday ayuu nebigu sidaa u eegay aqrac binu xaabis buu nebigu ku yidhi mee waa kan 100 halaadoo geela siiya buu nebigu ku yidhi cuyaynata binu xusnin mee way kan 200 halaadoo geela isagana siiya buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabadii buu fiiriyey safwaan binu umaya oo markaa weli aanan islaamin ghaswaddaa nebigu la socday baa la yidhi diin iyo caqiidanimo nebiga uma soo raacine waxau nebiga u soo raacay tolnimuu nebiga u soo raacay markaa buu nebigu eegay safwaan binu umaya wuxuu arkaa isagiyo xoolihii gaalada laga soo qaatay 2 buro dhexdooda xoolo buuxiyey oo geelii lo'dii adhigii waxba ka maqnayn wixii mawaashin la odhan jiray isha intuu la raacay kolba dhinac sidaa u eegayoo la yaaban niyaddana ku leh talow xoolaha maad heshida ayaa ku siin lahaa ayuu nebigu ku yidhi yaa abaa wahab markaasuu yidhi labayka yaa muxamed markaa buu nebigu ku yidhi ayucjibuka haadaa labadaa buurood xoolaha dhex socda haddii lagu siin lahaa bal ka warran fiicnayda mase heli karaa markaa buu nebigu ku yidhi huwa laka wamaa fiihi labadaa buurood dhexdooda xoolaha socda cidna kuguma haysatee adigaa iskale kaxaysa buu ka yidhi safwaan binu umaya sidaa intuu nebiga u soo eego wejigiisii iftiin baa ka baxay nebiga wejigiisa iftiin baa ka baxaya hal mar keliya intuu yidhi maa taabat nafsu axadin bimidli haada ilaa nafsu nebiyin naf sidaa wax u bixin kartaa ma jirto hadday jirtana naftaa nebi uunbay ku jirtaa ashhadu an laa ilaaha ila allah adiga hortaada waxaan ku qirayaa dadka hortoodana ka markhaati kacayaa dadkana aan u sheegayaa ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa adiga ilaa ilaahay mooyaane adiguna nebi rasuula inaad tahay baan halkaa ka markhaati kacayaa buu yidhi salaaddii nebigu hortiisa uu ku tukanayay kuma islaamin baa layidhi safwaan binu umaya laanna muddo dhan buu nebiga la jooguu ag fadhiisanayay isagoo mushrika uu nebigu soo dhowaynayey oo marka salaada la tukanayana maka lagu tukanayana intuu nebigu horay u baxo ayuu safwaan binu umaya gadaal u baxayuu nebigu iyo saxaabadu sida u cibaadaysanayaan buu fiirinayey kayfiyaddii nebigu u tukanayay kuma islaamin waxa uu ku islaamoo ninkaa beddishay deeqsinnimadii nebi maxamed markuu arkay buu ku islaamay diinta islaamka deeqsi buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qofalihii qofkii ilaahay la kulankiisa rajaynaya aakhirana ku xisaabtamaya cidda noloshaada macallimaad uga dhiganaysa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii nebi maxamed cid isaga aanan ahayn aad ku dayataa noloshaadii adigaa god ku riday ogow nin saalixiinta ka mid ah salafu haadihi lumma ayaa waxaa culammadu ka sheekeeyaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydiiba laba beerood dhexdooda isagoo hilin waddadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaaxu dariiqa iska taalla
dariiqa iska taalla uu qaatay uu gaajoonayay uu ka baday xabadii tufaax markuu ka baday calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yidhi xaq naas baad cuntay ayaa ku fasaxay nuskii kale uu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqaynay uu ku yidhi beertan ma adigaa la maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u malayn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiquu ku dhacay waan gaajoonayo nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kanoo waa iska qabteen nuskaan cunay ha layga cafiyey buu nuskana ha layga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u tegi isaga hadduu kaa cafinay isagay u taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud baan kugu xidhi haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaas inan baan dhalay buuri aqalka ii dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shantaa arrimood ee kuu sheegay leh haddaad iga guursato un baan kaa cafin haddii kalena nuskayga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeel lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd basheega way adag tahay soo maha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa tan lixaadkiiba ka wada maqaya maciduu saaruu rabaad odhan lahayd maciduu dul saaruu rabay laakiin ninkana waa nin mu'min oo aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho calooshiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku taabu markaa ka fikiraya saxaabni kale waan kursan buu yidhi ma layga cafin ها عقدك مركو دعوان كعفنينا انت كهريسسه كعفن مايو ninka dhalinyaradu daayiman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan Soomaha oo cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ha ninkana gabar macduurada loo badhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan hadana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odagii baa yidhi hadda mar haddii aqdigii dhacay waa ka saamaxay aroosna waa tahay inantii waa toqolka ku jirta way ku sugaysaa orada u galbu ka yidhi adigu hadda waa xaaskaagii isaga markaas la sii hadlayo wuxuu yiri haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad isor taagtana ku arki mayso haddaad maarataanay aad u qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad ka ictiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaa oo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'igta ilaahay baa ku jawaabi doontay darka buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas aqalka bartamihiisa waxa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynayo xoorol cayn samada ka soo dhacday inay tahay oo wixii la sheegay oo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldan oo qol kale ayaa soo galay maya bay ku tiri zawjadaadii baan hay ii kaale bay ku tiri markaasuu ku yidhi aabbahaa siduu iigu sheegay si ka duwan bay u dhacdee xantu waa xaaraan bay ku tiri aabbahay xaman waxa uu kaa yidhi aniga ii sheeg anaa kuu jawaabiye ma aragto igu yidhi sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiye ma aragta weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo wax ilaahay nabi maxamed ka caraysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo ذكري قرآني هذا لأنك يقول هذا يسمى ويانه هذا الإله كعلي سيني كما هذا شو ما قبطه لن أجانب ولقد قعنت هذا كما يقبل ما سعته لغة هيجا مال إلهي وكعرونا يو وما يأذكسون لغة هيجا كما يمرين بوي صدق سوا بهاي وجداء السكة الحمود بكتلي ومن يتق الله
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ميلو سكف لين أي أرزاق دي لهاي كسيي بيرتي بالسيي قبدي مال قبين كودلنا والله سي أعظم من هذا بالروح كسي قيمة بدن وكسي وين نكا صالح ولقاها هي قبدها مطيعة هيدي أبيدي هويدي تلدا أبي هو يكون جوريسي تلدا أنا كسعون تلدا لبدا والد أقل كوفردينا وحيكون عرتين لبدا قف مركز اسكو تجين إمام الأعظم بيكون عرتين إمام حنيفة إمام الأعظم إمام نعمان بن ثابت إمام حنيفة إمام كأئمة دورنا إمام كوها إمام مالك نوح بري إمام مالك نو إمام شافعي وحسي بري شافعينا إمام أحمد وحسي بري إمام الأئمة بالي إمام الفقهاء شيخ آسي قبردي ينكا صالحة مركي اسكت تجين ولقى إلهي علمي سمان تأذون كودن وبوحيي فقيها أها أيا إلهي الله بدا قف كسر نحساري ولا ليال لن يري هدان إلهي كعبصون وان إلهي دبر مينو وضاعد إلهي كودا دالنو وسيد إلهي نقرب أن يلو سيدان دون إنان نولوش أدوية إنكنا الله ينوغنك هدان لا إلهي أنكم مدح بانا حي والزمن كأنك مدحو دينة إسلام كأنه كود نغمو داتكي سنة وكود غوي أدكتها هدان لا إلهي نبي الله سليمان عليه السلام قصدي سيبا قرآن كوكا يحيد يسوء آخر سوء وعلماء ويدي بقر أفرتيني أدونك أسوة لسي نك مدى أيوها ولما ملك جيسو ما هي الملك كان بين هذا ككلي أي حيستان ملك الرباني أبو حي إلهي بسيي ووحى كمدى ملك النبي سليمان خلقك أدوية كنا لو دم الله هوس كنا الله سخري دبيش أيا الله سخري عفاريدي جنكا أيا إسقى وشقيني سي شياطين تا أيا أقلادنا ودي سي بدها أنت ودا دعانا جواهرتي دايما كأسو ساري سي هذا الكشمبره ودم نبي سليمان ويقاني وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرتو يدي إلى هالكاجر سمحوا ملاك القرآن هذا ليس هذا الكيجي لما قشي واربقر نوع يدونك مجرى ما صومري مي هذو صومرين وسليمان عليه السلام عند كلامه نبي سليمان نبي قاس ملكك انت على إلهي سيينا صا إلهي طاعة دي سمدافن إلهي ذكرك سمح المامن حل مالين كلية قرآن كإلهي كشيء في سورة الصاد وعلى فرضه آل الجعلاء طبعا فرضها أنا وأجعلها في كل الزمان فرضه شيء غالية فرضه سي وكوكا لجري أيا صدا الله صهور مريبا الليل ساعده ساعد إلهي ذكرك سمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعات حاجر إلهي للمنا جودو وقال لك وريه قال لك الدنبوه أيام وإنه قفك مؤمن كقرتا ساعة وحاجر إلهي ونوجد يلا دونيو إن الدنيا أنتو كإيمانو مساجد صوغ لون إلهي ودوانو إلهي لمنا جود ساعة دي ذكرك وسمين جرو ربك لمنا جون جري أيا فرضه صدا الله صهور مريه فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكي لا يقرأك أبو شيء فرده بالهرمري وحولي فردها هذه هرمري سان وعي إيقام مشغوليا إلهي حسكي بيقام مشغوليا ذكرك أن إلهي حسكي سا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع عليه يقول يسوع عليه كركا كوضا جرى يا أيجا وحلي وحي ضاعد إلهي كم مشغولين نبي يدو قورتك قوينيين إنك صلاة دان تكنا إني إيه مسجر بالدكانة دين إنك مشغولين الدكانة دين ولي ما بحنا نكيبا أبحيو أورانكر الدكان كاسمر عليه مركان صلاة دقلان كسهويا إيه إلهي درتيبا نبحي مجرى ما دعي كرتا ما دعي كرتا
fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee waliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sidaa loo hormariyay waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyay oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooyay buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacadiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leegu haystay xaqi ilaahayna uu ku gutay xaqi bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyay baa la yidhi xaqi ilaahayna ma dayicin xaqi bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nebiyo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay aka qur-aanka ilaahay ku sheegay nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu nebi shucayb adhiga uu jirayey dhul wuxuu adhiga ku raacaya maaragtaan yeyga iyo dhurwaagu ku badan yahay adhiga marka la raacayana lama jiibsan karo geel iyo looda marka la raacaya waa la jiibsan karaa laakiin arijuruhu ma jiibsan karo waayo dacwada ayaa ka dafaysa dhurwaaga ayaa ka qaadanaya muusa calayhi salaam uu daalay markaa deedna geed buu hoos fadhiistay baa la yidhi isagoo daalan dhinacna uga baqayo dhurwaaga inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jiibsaday hurdadii baa la tagtay mar dambuu markaa nebi muuse u baraarugay ushiisii buu waayey ul buu sitaa mogta markaasuu adhigii buu dhex yimid oo wuxuu arkay dhurwaa ushii nebi muuse haysta calayhi salaam oo adhiga neefka baalmartaba u soo wicinayo ku soo celinaya markaasuu nebi muuse yaabuu sidaa u egay waa dhurwaagu adhiga uga baqaya baa u soo ilaalinaya markaasaa lahaatif dhawaaq buu maqlo oo lagu yidhi kun lii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid yaa muusa sidaad anigu aan doonaya haddaad ii yeesho sidaad adigu aad rabtana annagaa kuu yeelayna baa ilaahay ku yidhi sida rabbi doonayo haddaan yeelno sidaan innaku doonayna ilaahay noo yeelay dad badan baa kula noloshaan maanta fahmi laana nolosha haddaad cibaadada ka dayi weyda macaankeega ma fahmi karaysid waad wareeri waad dawakhi adoo wareersanna malakalmowdkaa ku imana ogow laakiin haddii xidhiidhka ilaahay aan adkaysanno oon iimaanka islaamnimada salaada cibaadada diinteennu ay naga noqoto maaragtaane dhaqan oo aysan naga noqon dhegaysi keliya oo diintu dhaqan ay naga noqoto waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku galaynaa janno nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisaayey ayagoo maskiidka ka soo wada baxo isgarab socduu nebigu ku yidhi cali ka warran faaduma haddaan kuu dhiso markaa buu sii jeesto uu ka xishooday faaduma waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa taysa soo diyaari buu ka yidhi wuu socday inantiisii buu nebigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay dee miyaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu canha way aamustay way xishootay markaa bay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi dee cali baad ii dhistay haa cali yar calool buuran yahay haye habeenoodna uu leeyaho habeenkii indhaha aad wax ugama arka bay ku tidhi markaa buu nebigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummatii silman wa akharuhum cilman wa acdamuhum xilman buu ka yidhi faatimaay ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummaddeeda ugu soo horreeyey ugu soo hor islaamay waana ninka ummaddeeda ugu cilmi badan waana ninka ummaddeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waa ku hoynayaayo diyaargarow buu ka yidhi inaku iminka gabdhaha waxba kuma darnee waxuunbaa ka sugnaa sooma inta badan soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nebigu inantiisii faatimo markuu dhisayay u raaciyey barkin buu siiyey gogol buu siiyey weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabkaa maaha u fududaa noloshu way fududay guurka haddii la fudaydiya bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhallinyaradu ku dhacda ayaa adkaan haddii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeyey ogow zinadii baa la fududeeyey marka guurka inaan fudaydina diyaar ma u nahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkaa kula dagaalami karno in guurkana la badiyo in la fudaydiyo weliba islaamnimadu ay kaa tahay
ficil ku dhaqan inaad ku dhaqanto ood barato ood ku camal fasho waxaad u hiilinaysaa nebigaaga calayhi salaatu wasalaam sulaym inankaygii bay nebiga u geentay ku tiri nebiga u adeeg nebiga u khidmee khidmadda nebi maxamed waa khidmaddii diintii ugu deedna nin abu talxa la odhan jiray baa markaas soo shukaansaday iyadii waxay ku tiri maad islaamta markaasuu yidhi may laakiin diin baan haystaa anigoo diin baan leh markaabay ku tiri diintii waan is ognahay miyaanad xishoonayn bay ku tiri adoo nin ah oo ilaahay ragga uu caqli ku deeqay qori gacantaada aad ku qortay inaad baridaa oo baahidaada aad u sheegataa mayna nuqsaan kugu ahayn bay ku tidhi anu gaal ma guursanayn in mushrigee ka dhaqaaji bay ku tidhi markaa iimaankayga ilaalsanaysaa iyo diinteeda wuu kolku sii jeestay uu yeedhay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu haddaad islaami lahayd abu talxow islaamnimada aad soo gasho ayaan meherkayga u qaadan bay ku tidhi soo islaam bay ku tidhi waa gabadh meherkeygii mariinkeygii wixii haweenku ay ku farxaan oo dhan waad og tihiin way jeceshahay waa habeenka keliya gabadhu ay farxad caruuskeedu waxaasoo dhan waxay ka doorbiday inay ninkaa naarta ka badbaadisu noqdo asxaabtii nebi maxamed ragga ugu qiimo badan uu ka mid noqdo isaguna markii dambe marka diinta ilaahay hanu helinno ku dheeraada anu malayshaa saamixuuni khayr baa inaga muuqda khayrkaana allah inoogu sii wado diintana insha allah inaan camal fal u bedelo soo diyaar uma nihin sala allahu calaa sayidina maxamed wasalaamu calayh mid baa kuu sheegaya dhegayso nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo nool ayaa lagu yidhi nebi allow salaaddii baa taagan markaa buu nebigu yidhi abubakar ummadda salaadda ha ka bixiyo caaisha radia allaahu canha ayaa tidhi yaa rasuula allah abubakar sidiiq waa nin qalbi jilicsano maqaamkaaga hadduu istaago maaragtaane oohintiisa ayaa ka qaalib noqonaysa qur'aan akhriskiisa oo la fahmi maayaba qur'aankiisa markaa buu nebigu yidhi caaisha aamus buu yidhi adigu abubakar salaadda haynaga bixiya buu rasuulku yidhi abubakar nin xishood badan buu ahaa oo naftiisa dhowra oo mukhlis oo ikhlaaskiisa iyo iimaankiisa ilaashanaya buu ahaa ismu qadimine uu joogaa وعلي عمر بن الخطاب بعد دمعين يسقدمه مركب النبي قورته لا سوق له مساجد يلا غريغ النبي او جيفو يمسكيتكو اسكو مقدان ما اوغتahay markuu arkay nabigu Umar oo safkii istaago istawule ayuu nabigu ya aba Allah wal mu'minuna illa Abu Bakr ilaahi iyo mu'miniintu way diideen Abu Bakr oo halka jooga nin kale salaada umada inuu ka bixiya ilaahayna ogolaan maayo mu'miniintuna ogolaan maayo rasuulku sidaasoo markaa abubakar uu salaadii ku galo ummadda kaga bixiyey dhegaysa buu dhaabaa suufiyaanow salaaddu waa camalka aakhiradeeda badbaadinaysa buu yidhi een aakhiro ku badbaadayno ninka aakhiradeedii hoggaan la nooga dhiga camalkaa ku badbaadi lahayn adduunyadana isagoon baana hoggaamin karay buu yidhi cali bin abi taalib salaadii uu abubakar u tujiyey ummadda nebiga oo nool ayaa laga cabiray nebi maxamed gadaashiisa khilaafada islaamka nin abi bakar uga xaqle haba yaraateen ma jiro walaalayaal marka salaadu zamankii nabigeena sal allahu alay wasalam haddana abi bakar ninka ku xigay xagga salaada salaadu fiicnida cumar bnu khadaab buu ahaa taladii ummadda cumar baa qabtay haddana cumar gadaashiisa ninka salaad wanaag ninka salaada wanaag ugu salaad wanaagsanaa ummadda cusmaan buu ahaa cusmaanna maaragtaane abi bakar cumar buu ku xigay uma caliy buu ahaa haddana calina wuxuu ku siigay cusmaan waa markay ummaddu ay wanaagsanayd ninba ninka uu ka salaad fiican yahay ayaa talada ummadda loo dhiibanayay cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo saxaabi jaliila تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيبا كوري عيدا كنكا وطا والنبي محمد أرضي ديسي أرضي كمدا حنقا دلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلصي سن السارة إسلام كأقص عطا وسد عن سبيل الله يقول نقض لكن وحينا كور قبيني نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما الدولي الله إيمانك وقلبك دل الله القدل الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى
وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ماها من عربك الدنيا الله من ما أدوية لا دافسن كرا ماها ومن قلبك وإيمانك فريستي وين الله كتعلق صلاة هو يا بقرك ما كلها تعين النصرانية ده سوقلي بقرتوي ده أنا كلا بركة بنقصينه مركز وقصلي وعند بقرتوي ده هذا أورد ما يسترون وحبل لجربين يا بقرتوي ده عربي أي هاي ستو هذه هالكلا يديكو أول يقول هذا دين الإسلام ككبح ودي بقول نقو والله هنا أنا يلي بوكي والله ما فعلت بقول طرفة عين دين الإسلام ككبح واسكت نقو وحاسو ملكي أنا قاضو ما يلا يبي بقر كيف أقول دوا كنت لينا دوا بني حدنا هاي هذا يدل سوا بني حدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكو إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلا أو تمكين هلا وإلهي قرقار قيس الله بلن قاد عنده كو أركان إما إن الشهادة هلا نفردوس يتقام لو شهاد بيد وحبوهم أركان وحال السماء مركا بقر كي أمر روحه كبحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا أي هرتو دي لكاني لبنان ومسلمين تيتو الله سوق هذا يسقون أركايو أي للدين الإسلام كان نقدا كما نقول النبي دالي مركز الله قبته لبد إن بس الله وطوري قف بني آدم النول ودري سليد وكركرايا الله وطورك ورم سبحان الله سقي بأمرك الله دول كانوا حدنا كان نقول دين الإسلام كون نصرانية دقادو markaasuu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaaloow markaasuu ma gaaloobayo damaxaad loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkarayo hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala إن لا ترين لها وإنت أصل روح اللي يقول أبوري لها ومد والبينتو مر هالك على الضل كانوا إلهي درتي يقبح لهي تاسع 8 مليون هيسنو كوي يا بوكي تفكلي معها كما يلنا فإن لا يقول أبوري لها ومد والبهالك ينتو على الضل كان إلهي درتي يقبح لهي تاسع 8 يا من هيستبوكي بقر كيبادي كان دلقيس وحنوثري ماي أسكسي دينه واي سيداي ما كلها تايب وكيد ما دحين هذا يقدم كان وأنا كسيد دينه مركز المقال ما دحين قدم كذا سجيب أصل شورست شرط بوك حدا وحدا هدي مسلمين تا إلى حدا هدي سيد دينه سيدها وان كاردم كان هديك لا كاردم كان ما يبوكو يدي مركز الواحد يقدم كو مركز المقال ما دحين قدم كذا أنا أصحاب النبي محمد كمدا رجعه ويسي دينا يصومها هنا وكذا كذا اللي بريء بالجهاد بنقصوا علينا كلا بيحمى هنا عجيب أصحاب الرسول رئيس قالن عمر بن الخطاب صود ويي إنه قال ماذا حكى صود كذا أيها وشيء جايب على يلو رجع الله السعودية عمر كويري عبد الله بن حذافة هدون كانوا هالسلام إنه هالصود وين وايو قال ماذا حكى صود كذا إنك أنا هبل دبده وبحي هبل دبده وبحي هبل يطلع الشنايايو بس كوكو توستي قال لنا لا شقيسو أيا ما أنت مسلمين تهرمروا أركان قال هذا بالكوكا إنا تجنو أيا ما أنت مسلمين تهرمروا أركان إياكونا رجي إلا السودة يدوم كشدة نقول السودة يبقى عمر كله قال بماذا حكى صوت كذا السلام عمر بايد بلوك هذه هو رئيسته سيده يكون علي إن هذا قال ماذا حكى نقطة وعليك أكو السودة يقول سمرك عقدة دي يريد قلبك أوجش وعمر وقبل يقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك بقولي قف كستو مسلمة وحق أبو عمر إن ما ركت أنا عبد الله بن حذافة وماذا حكدم كذا أنا كبل أبو يقول أنا كبل أبو إلهي بيكو حنايا إسلام نمد يكو حنايا الضوما وحي النقد إلهي مشكلة يحي سدي إلهي دوني مركي يالان
sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay nin qisad maalin iiga sheekeeyey nin dhakhtar oo Jarman ayaa wadannadaas ayuu airport ayuu markaa diyaarad buu magaalo kale u raacay nin dhalinyaro oo muslim ayaa markaa suuratul kahf qisadaas risaalad yar oo culimadu ay ka qoreen oo tafsiirka quraanka una wax kale aynu ku darin oo luqada Jarmalka lagu qoray lagu taabacay ayuu markaa yarka dadka u qaybinayay dadkii diyaaradda sugayay kuraasada ku fadhiyay ninkan waa nin professor oo dhakhtar oo rag adduunyada xagga dhakhtarnimada ugu aqoon badan buu ku jiraa laana wadanka Jarmalku waa wadanka lagu sheegay la yiraahdo waa wadanka adduunka ugu aqoon badan xagga dhakhtarnimada loo doonto caafimaadka ilaahay baana caafimaadka hayay caafimaadka hayay ilaahay baa wasaaradda caafimaadka lagu oran laakiin wasiirka dhan ee caafimaadku u buka halka waran wasaaradda caafimaadka wasiirka dhanna u buka nin baa la nagu yiri ninkan wuxuu madax ka yahay hay'adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga markaas ku reerkaaga imsa masiibo ku dhacday wuxuu yiri inankayga weyn baa iga wala buuri walan yahay de baad ka hortagtida waxba kama hortagi karo insaanku waa daciif وكان الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا إلهي بشيء ضعيف marka wadanka dhakhtarnimada lagu amaano ninka marka ka soo jeeday risaaladuna luqadooda ku qorneed marka yarkiiba uu tuuray oo siiyay oo qaado marka handbag uu gacanta ku sitay iskaga riday waa nin mashquul ninkan laakiin taraaga diyaaradda uu raacay min wadan ila wadan ayaa saacado dhan buu soconayay marka kolkuu kursiga fadhiisto hawlihiisii wixii uu ageeganay uu dhameystay buu xasuusto yiri kii yaray airportka aad ku aragtay muslimka ahaa warqadii uu ku dhiibad halka ku ridatay bal soo saaray aayadaas markaas dul taagay wa nuqallibuhum dhaata al-yamin wa dhaata al-shimal dhalinyarada ilaahay baa yidhi marka ay jiifaan marna midigtaan u bedelnaa baa ilaahay yidhi marna xagga bidixdan u dhignaa say u daalindee ila qofku xaggan hadduu u jiifo un xaggan xanuun baa gaadhaya jirkiisa waa qallibnaa baa ilaahay yidhi laakiin ayga ilaahay markuu ka warramayay wuxuu yidhi وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل ايغو اسغو لما قلبايو ايغو سدو سخدا واد رagtende sidaas uu socdaa isagu ay boggan dhulka dhiga wuxuu yiri marka ninkii wuxuu akhristay bini aadanka markay jiifaana waxa la quraankan uu sheegaya in la qalibayo asxaab al-kahf oo marra xaggan loo rogay marra xaggan loo rogay laakiin ayga maxaa loo rogi waayay buu waa inaan cilmiga baaraa markuu wadankiisii tagay oo dhakhtarkiisii ku noqday ayuu qalabkiiba baaray oo qoon wuxuu baaray marka dubkii bini aadanka ila waxaan way wad haystaan moogta dubkii bay eegeen qalab buu ku eegay inta saacadooda dubka bini aadanku dhulka dulooli kara buu soo saaray ayga haddana wuxuu soo saaray bogiisi markaasuu soo saaray haddana ma aragtaan inta sane aygu bogiisi oo dhulka dulooli kara lagu hayn karo sanawaad qurunan markaasuu yiri علميا نينك كيني بانو باهنا هي ادونك وايو markaas المسلمين بو راديه والله الله والله خريدي waxa la waa quraan wa tanzil min rabbil alamin munazzal gormaana quraanku soo dagay 14 qarni ka hor baa laga joogaa quraanka soo dagay dhowr 40 sano أيونا دوشي كسو دقي محمد عليه الصلاة والسلام نبي الأمي نبي أمي آية قرآن كدوشي سلقو سودجي أمي بالليلي إساقنا وحما قرو وحا الله قرآن ما آخرين كرابا ليلي قرآن كالنبي صفات كإلهي وكشيغي النبي قلنا وكفانو يري نحن أمة أمية أنك وحانا هي أمة أمية وحنا ما أخرنا بقى النبي يقول وحنا ما قرنا أمة داس القرآن خصوصا دقيقة ورم قرآن هو معجزة